kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan youtube-keena himilada nolosha. mahmaahdu waa hadal sugaamaysan oo ku soo go'an soo noqnoqoshada hal dhacdo oo in badan soo noqnoqotay. dhacdadaas hadalka laga yiraahdo haddii ay bulshada loo yiri weedhaasi ay ku qanacdo waxa ay noqotaa mahmaah. mahmaahdu waxa ay soo dhaweysaa ujeedada hadalka iyo isfahanka laba qof ay isku afkartaan hadal kooban ama diidmada iyo ku kala takanaanta isla arrin kale. mahmaahdu waxa ay soo koobtaa sheeko dheer oo socon lahayd waqti badan. waxa ay sidoo kale runta ka sheegtaa waaqaca lagu jiro iyo waqtigii la soo dhaafay labadaba. tusaale ahaan, haddii aynu nidhaahno wax tiigsimaad ma leh, loo jeeduhu isla markiiba waa uu fahmi karaa inuu go'aanayo wax uu soo dhaafay, waxaana uu go'aansanayaa ka hadhidda arrinkaas eegay. mahmaahdu waa hadal marka meesha uu ku habboon yahay lala beegsado odhaahda ka dhiga mid qiimo badan oo soo afkooda. hadal dheeraan lahaa murankiisa iyo doodiisuna ayba sii jiitami lahaayeen kolka mahmaah sugaamaysan lagu soo afjaro. waxaa qurux badnaada haldhacsiga toganaha ah ee dooda iyo farshaxankeeda. mahmaahdu waa hadal qurux badan oo aad u heer sarreeya, waxaana ay u dhigantaa maansida qaybaheeda kala duwan sida gabayga, geeraarka, buraanburka iyo masafada. waana hadal si cajiib ah oo haddana ka duwan tan maansida u soo bandhiga dulucda iyo duwanaaga sheekada. haddaba mahmaahdu waa ay noocyo badan tahay, waxaana ay noqotaa ugu yaraan hal odhaah iyo wax ka badan. mahmaahyada ka badan hal odhaah waxaa loo yaqaanaa mahmaahyada tiraley ah, sida labaley, saddexley, afarley, shanley ilaa 12 ley. mahmaahdu in ay tiraley noqoto waxaa sababa hadba ujeedada laga leeyahay, maadaama oo mahmaahda lagu soo koobayo dhacdo dhammaystiran oo waayo aragnimo ku duugan tahay. mahmaahda ay ka tiro badan tahay ayay ka xog ballaaran tahay, kana faahfaahmo dheer tahay, kama se macno badna. mahmaahda labaleyda ahi waxa ay soo koobaysaa ujeedo lagu soo koobi karo mahmaah labaley ah, halka mahmaahda saddexleyda ahina ay soo koobto dulucda mahmaah 3 qodob ka kooban. tirooyinka mahmaahda lagu lamaanaysiiyo iyo mararka qaarkood xarfaha la isku ekaysiinaya waxa ay fududeysaa soo xasuushada mahmaahda, sidoo kalena waxa ay macaaneysaa dhihidda hadalka iyo u fududeynta carabka loo fududeynayo. badanaa mahmaahda cid u gaar ah ma samayso, waxa si qofka ka yeersiiya duruufaha jira xilli gaar ah. mahmaahdu ma aha hadal loo qastiyey in si ku talagal ah loo yidhaahdo, waxa se uun laga guntaa qof hadlaya oo meel shir ah amaba gulo waayeel ah ama culimeed ah jooga. sidoo kalena waxaa ilaha mahmaahda ka mid ah canaanta waalidku ku canaanto ilmihiisa si uu dhaliisha ilmihiisa u toosiyo. mahmaahyada badanaa ma jirto cid si gaar ah ugu magacaaban, sababta oo ah iyaga sida maansida oo kale looma bambaxo. ugu yaraan waxa aynu odhan karnaa waxa hal abuuri kara oo aanay ka ag fogaan ninka maansida curiya, nin jaajaale ah, iyo abwaanka oo hadalka sangaabta ka soo qabta, iyo cid kasta oo duruufaheedu badan yihiin. mahmaahda saddexleyda ah waxa ku badan qaamaanseedka, heesta jaandheerta, ciyaarta jaandheerta ah. had iyo gooraa leh waxaa lagu dhex darsadaa hadallo xigmadaysan, qodobaysan oo aad u kooban,